waxaan rabnaa markii dadkaas in lagu taageero dhiig in loo shubo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto. waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin degdeg ah oo waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno joogta magaalada Garowe iyo dhammaan magaalooyinka Puntland sida Boosaaso, Gaalkacyo meel kasta ay naga daawanayaan in ay jiro barnaamij dhiig shubid ah oo lagu taakuleeyo laguna taageerayo dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Laascaano. waxaan rabnaa inaan dadka ogeysiino waxa lagu jiraa bil barakeysan oo bil Ramadaan ah. waxaan doonaynaa dadka inaan u sheegno in ay ka faa'iideystaan bisha Ramadaan oo ay dhiig shubaan isbitaalada ay tagaan meelaha caafimaad oo dhan iyagu waxaan rabnaa inay ku shubaan si free ah. waxaan hadda ugu baahi badannahay waa dhiig. maanta waxa dhacay dagaal baa wuxuu ka dhacay Laascaano. bil Ramadaanna way tahay oo subaxdii dhiig lama shubi karo. waxaan rabnaa marka dhammaan bulshada ku nool magaalada Garowe waliba khaasatan in ay tagaan isbitaalada. waxaan rabnaa dadka inaan wacyi gelino una sheegno inay ka qayb qaataan barnaamijkaas oo ah barnaamij ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro iskaa wax u qabso ah. barnaamijkan qof kasta isku diray oo si volunteer uga shaqeynaysa uguna hawlan inay dadka u wacyi geliyaan inay dhiig shubaan. waxaan rabnaa qof kasta oo magaalada Garowe joogo inuu barnaamijka ka qayb qaato haddii uu qofkaas yahay si kasta ay qofku waxa la rabaa ninka askariga maanta qoriyay dagaalka la taagan yahay anaguna waxaan rabnaa inaan qalinkii wadanka ku difaacno. hadduu Allah ku idmahayo waxaan rabnaa dadka sida ugu dhaqsiyaha badan arrintan waa arrin emergency ah. isbitaalada waxa la keenay dad dhaawac yaala magaaladii Laascaano hoobiyaal baa la dhacay dadkii magaalada ku nool rayidka shacabka looma naxariisan. nimankii SNM aha dadka waa xasuuqeen. waxaan rabnaa markii dadkaas in lagu taageero dhiig in loo shubo waana bil barakeysan oo ajirkii waa laba jibaarmiyaa. waxaan rabnaa hadeer sida ugu dhaqsiyaha badan caawa wali waxaan u nahay si emergency ah. isbitaalka Sixa wuxuu ka mid yahay isbitaalada maanta ku dhawaaqay inuu barnaamijkan uu u sameynayo si volunteer ah dadka dhiigga uga baarayo dhiigana ugu shubayo. isbitaalada kale waxaan ugu baaqaynaa inay barnaamijkan iyagana ka qayb qaataan. awl horena way ka qayb qaadanayeen haddana waxaan rabnaa dadka u imaanaya oo qof kasta dadka dad badan oo waxa imaanaya naftu horyaala oo dhiig shubaya dadkaas inay soo qaabilaan oo dhiig ay ka shubaan baan rabnaa. Ramadaan Kariim baan leenahay. waxaan ku jirnay ololaha wacyigelinta dhiig shubidda shacabka Soomaaliyeed oo loo dirayo magaalada Laascaano dhiiggaas oo la rabo in lagu badbaadiyo askarta iyo ciidamada haddii la haydmo. dhammaan waxaan halkan ka salaamanaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay inay ka qayb qaataan khaasatan shacabka ku nool magaalada Garowe oo waa inay tagaan isbitaalada oo ay dhiig shubaan oo ay ka qayb qaataan taakulada iyo dhiig shubidda magaalada Laascaano. Assalaamu calaykum. ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga. haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda. garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka. shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtida baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.